السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وضاوضي أن كوسو قدبية وردق دقاء ciidankii Cabdicasiis lafta gareen ee sida nabadgelyada ah uga baxay magaalada Baydhabo dabada tagay awdiile waa ay ka dhaqaaqeen oo hadda waxay joogaan magaalo la yiraahdo Bohol oo ku taala gobolka Gado waxayna u dhow yihiin degmada Luuq ku dhawaad 12 gaadiidka Cabdibilaha ah iyo sidoo kale gaadiid dagaal ay wataan ragan sida aan xogta ku helay askarta halkaasi ka baxday waa awdiile ee hadda joogta magaalada la yiraahdo Bohol ku dhawaad waxay gaarayaan 700 oo asgari waa ciidamo dagaalami kara laakiin aan ugu talagelin inay dhiig ku daadiyaan magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada warar la isla dhexmarayay saacadii la soo dhaafay ayaa noqday kuwa aan sal iyo raatoona lahayn kuwaas oo ku saabsanaa in maamulka Jubbaland uu ciidamadan u diiday inay galaan degmada Doolow iyo degmada Luuq wararka la helaya haddaba waxay tilmaamayaan in warkaas uu noqday war aan sal iyo raatoona lahayn oo ay baahiyeen kooxda Baydhabo ku sugan ee diidan nabadda iyo horumarka reer Koonfur Galbeed muuqaalo goor baraha bulshada lagu baahiyay ayaa waxay muujinayaan askartan oo si qurux badan loogu soo dhaweeyay magaalada Bohol kadibna maalmaha soo aadan gali doona degmada Luuq oo ka tirsan gobolka Gado Axmed Madoobe iyo sidoo kale Cabdicasiis lafta gareen wada hadal telefoon ayay yeesheen sidaan xogta ku hayo hadalka telefoonna waxaa la sheegay in diiradda lagu saaray in ciidamadaasi si qurux badan loo soo dhaweeyo oo ay ka qayb qaataan gulufka dagaal ee ka dhanaa dawladda Soomaaliya ee duulaanka ku ah gobolka Gado iyo sidoo kale guud ahaan Jubbaland saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan qaarkood oo aan goor uu telefoonka kula xiriiray ayaa waxay ii sheegeen in aysan waxba ka jirin wararka la isla dhexmaraya ee tilmaamaya in qabiil ka mid ah qabaa'ilada degmada Luuq ay u diideen in ciidamada halkaas galaan waxay saraakiisha ii sheegeen in warkaas uusan ahayn war sax ah isla markaana hadda ay ku sugan yihiin magaalada la yiraahdo Bohol kadibna ay uga sii gudbi doonaan magaalada Luuq dabadeetana ay tagi doonaan degmada Doolow oo ka tirsan gobolka Gado isku xirka inta la eg iyo dabcan inay ciidamadu nabad uga baxaan awdiile kadibna ay tagaan magaalada la yiraahdo Bohol dabadeetana Luuq dabadeetana Doolow ay tagaan dabcan waxay ku tusinaysaa in xiriir wanaagsan uu wali ka dhaxeeyo Axmed Madoobe iyo sidoo kale Cabdicasiis lafta gareen muuqaalada baraha bulshada lagu baahiyana waxay ku tusinayaan inaysan rasal iyo raatoona lahayn wararka sheegaya in ciidamadaasi la xanibay طبعا كوحدة بيضاء قبستي هجامينو حسن الشيخ محمود أيا دور جر أو كل دول لجوء إيديه إن صنداعات كاهين إن وذا هذا اللي وذا حاجة حالة لجوء مايو يجوا بدل كذا دور جر أو كل دول إسكود إن أي عرقلة ديان نبض يحسلون ده حكت له لي واحد المام ساعة إن أفرتن يسيد دي ساعة لصور عفي سي وين لو si weyn markaasi loo abaabulay faahfaahinno la xiriira in markaasi ay jiraan aragtiyo la xiriira in maamulka uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka xataa Baydhabo ka dhisanba aysan iyagu xilligan daacad ka ahayn sidii looga rusheegi lahaa caqabadaha halkaasi ka jira rag saraakiila qaarkood oo aan goor dhow la hadalay waxay tilmaameen in bilihii la soo dhaafay si weyn loo dareemayay cadaadiska xoog leh ee ka imaanaya dhinaca Xasan Sheekh Maxamuud dabcan odayaal dhawaan loo diray degmada Doolow si wada hadal iyo wada xaajood xaaladda loogu dhameeyana waxaa la sheegay inay dabcan waa degmada awdiin la dhahay way ku fashilmeen sababtoo ah wax fikir ah oo macquul ah oo maanta xataa ragga lagu heshiin karo ma hayaan mana soo dhawa sida ay dad badan aaminsan yihiin degmada balad xaawo ee gobolka Gadana dhaqdhaqaaq culus oo dhanka ciidamada ah ayaa laga soo warinayaa sida ay tilmaamayaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay 48 saac la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee halkaasi ka socda waa kuwa aad u sareeya rag saraakiil ah oo ka tirsan ciidanka Jubbaland waxay tilmaameen hadii dawladda Soomaaliya isku daydo inay weerar ku qaado degmada balad xaawo ama degmada Doolow inay qaadayaan talaabooyin dheeraad ah oo ay sheegeen in aan la mahdin doonin oo Xasan Sheekh Maxamuud uu ka shalayn doono qalaalaasi xoogan ayuu Xasan Sheekh Maxamuud xilligan gelinayaa guud ahaan gobolka waxaana dhowr jeer oo kala duwan laga digay in Xasan Sheekh Maxamuud uu sii wado falalkiisa la xiriira kicinta qabyaaladnimada iyo sidoo kale isku dirka dadka bulshada rayidka ah sida ay dad badan aaminsan yihiin marka waxaad ila daawataan qaar ka mid ah askarta ciidanka Jubbaland iyo saraakiishooda
oo ku hanjabaya isla markaana leh haddii laga soo ag dhowaado magaalada la yiraahdo Doolow ama magaalada la yiraahdo Garbaharey tallaabo dheeraad ah ayaan qaadaynaa oo si naxariis darro ah ayaan u weerari doonaa cid walba oo isku dayda inay caqabad iyo nabadda xasiloonida ka jirta gobolka ay carqaladayso bal waxa ay la daawataan qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ee hanjabaya howlgalku wuu socdaa bilaahi kariim wuuna socon doonaa kama hor dhacayo najiitada iyo wixii ka soo baxa iyo systemkana waa idin la wadaagi doonaa dadka Soomaaliyeedna waa la wadaagi doonaa waa mahadsantahay dawladnimada Soomaaliya qori isu dhiib bay ahayd annaga ka Jubbaland ahaan waxaa nooga qorshaysan inaan dadka Soomaaliyeed qori isu dhiibkii iyo madashii iyo qaabkii iyo sidii dadka Soomaaliyeed maxaan ku dhahaa muddadii lagu soo hogaamin jiray maxaan ku dhahaa dib loogu noqdo wada tashigii iyo taladii dib la iskugu noqdo dawlad goboleedyadii loo yeero dadka waxgaradka ah oo aqoon-yahanada oo Soomaaliyeed loo yeero madasha oo dhan loo yeero marka in shir loo dhan yahay oo Soomaalinimo ah oo dawlad Soomaaliyeed maxaan ku idhaahdaa shalayto sida calanka iyo ummadda Soomaaliyeed loogu dhiibay madaxweyne Xasan Sheekh oo loogu dhaariyay tiyo kale in la sameeyo laakiin waxa kale oo dhan oo la tumahayo waa jugjug halkaadi joog waana wax riwaayad ah marka yaan waqtiga laga qaadan ummadda Soomaaliyeed baan qabaa waa mahadsantahay war waa mahadsantahay runtii su'aal oo aanan aad uga baaraan degin baad hoosta iga soo gelisay laakiin waxaan rabaa inaan hal qodob ku sheego niman dhalinyaro ah tihiin Soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiye uma baahno qof laablakac ku yimaado uma baahno qof hanti aruursado uma baahno qof baabuur dhowr ah iyo xayn qabiilo ah oo dhalinyaro ah ka shaqeeyo Soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiye asal ah oo dadka Soomaaliyeed usha u qabto oo da'yarta oo maanta jiro oo hogaamiyo waxay u baahan tahay anagu markaan dhalinyarada ahayn waxaan ku barbaarnay Soomaaliya ayaanu ku barbaarnay Soomaaliya ayaan ku barbaarnay waxaan ku barbaarnay anaga oo maxaan ku iraahdaa ama ku heesayno ama ku dikrinayna ummadda Soomaaliyeed ee shanta Soomaaliyeed